sidee loo isticmaalaa application-ka PixArt dad badan ay soo weydiisay loo isticmaalo PixArt waa qaab badan waa uu fara badan yahay qaabka loo isticmaalo man la soo koobi karo dadka badan waxay isticmaalaan sida background loo bedelo maanta waxaan ka hadli doonaa sida background loo bedelo insha Allah do ilaahay mid kale aan soo hadli doonaa ugu horreyn waxaad u baahan tahay sawirada background-ka aad bedelayso inaad hesho background waa kuwa inta ku safan waxaad ka heli kartaa google-ka soo degsan doontaa qaarkoodna anaa linkiga kuu soo dhigi doono description-ka kuu soo dhigaa linkiga ka degso hadirtaan waxaan ku hormari doonaa sida sawirka background-ka loogu jaro ugu horreyn waxaad u baahan tahay background inaad hesho background-ka markaad hesho waa kana waxaad imaan doontaa add photo waatan halkan ay ku taalaa waxaad soo dooran doontaa sawirka aad rabtid inaad soo jirtid waa sawirka markaad soo qaadid waa kana sawirka waxaad tagi doontaa cut out meesha ay ku qoran tahay calaamadda maqaska ay saaran tahay aad dooran doontaa markaad doorad kadib sawirka waa kana outline aad doorane kadib halahaad rabtaad ka dhigayna size-kaas waxaa muhiimad waxaa sawirka inaad circle geliso ama meel kastoo sawir ka mid ah inaad soo wareejisid haddaad rabto size-ka waad yareyn kartaa si tartiib oo yariis ah kusoo wadi kartaa laakiin dadka oo minaha waan oo isticmaalkeeda aan u badnayn inay yareystaan u wanaagsan sidaan oo kale ka hadirta anay waxa sawirkan soo jarnaa sawirka markaan soo jarno markaan sawirka wuxuu ku leeyahay dib u sii habeey sawirkii aad soo jartay dib u habeey wixii ka maqan wixii kala soo qaado labadan calaamad meesha taal waa restore iyo erase labad midkood ay isticmaalaysaa mid waa qalinka midna waa goomaha oo ku tirtiri lahayd midna waa preview-ga waa midka aad ku fiiri lahayd sawirka sida uu kusoo bixi doono hadirtaan lugaha ka maqan Markaan sawirka markaad sawirka soo jartid kadib waxaad rabtaa sawirka meeshaad istaajin lahayd adigaa ka yaqaano haddaad rabto xaggaa gey kartaa yariisaa ka dhigaysaa xagoogso ama daaratan intaas ka keeni kartaa saad rabtaa yeele haddana xaggaa geysaninanan sawirka markaad sidaad yeesho kadib wuxuu leeyahay shadow meeshay ku qoran tahay sawirka hoos u sameeya uu leeyahay hooskiisa u sameey positionka dooro dhankaan u bixi horizontalka dhankaan u bixi haddaad rabtana oo joog markuu yahay oo kale vertical isticmaalay hada dhankaan waxay u bixinayna sawirka adjust iyo xoogaa waa ka yareynay sawirka blurna waa sawirka hooska sida uu soo muuqanayo iyo sida uu daciif u noqonayo markaas sawirka sidaan u helay u sameysid kadib waxaad markaas sidaan waxaad soo dooran doontaa picture yar oo loo isticmaalo sawirka hoos lugaha aad dhigaysaa meesha si uu loo maleeyo inuu taagan yahay sidana linkii idin soo dhigaa linkii ka degsada markaas sawirka sax soo dhaay sawirka koodiisa waa hadeertan isku dhigmaa kadib waxaa kasii dooranaysaa effect meesha ku qoran tahay effect markaad dooratid fx haddana waxaad imaanaysaa fx meesha ku qoran tahay kadib waa kasii dooranay midkii adig ku wanaagsanaado halkana sidee midkii adig ku wanaagsanaado doorane kuwa ugu wanaagsan badankood waa inkaas waxaad imaanaysaa fin 1 fin 2 fin 3 fin 4
intaana ugu wanaagsan badankooda. Vinforka badanka aan si Vinforka ku habeeyaa, badankoodna isaga ugu wanaagsan. sawirka awal soo hadeertan isku mid maamu jeedida. sawirka background ka soo bedeshay insha Allah. dad badan oo dhahay arkay sidee sawirka waxaan soo dhigay video ahaan sida loo sameeyo waxyaalaha koobiga. koobi markaad rabto ugu bareen cashira ka soo sameyn doona insha Allah doo Ilaahay idmo. koobiga waa sidaan oo kale, wuxuu leeyahay doorasho koob. ninka way dhinac ku soo koobiyay ama kale hadaa rabto doorasho qalin caadi qalin ku dooran. insha Allah doo Ilaahay idmo part 2 soo sameyn doona sida loo sameeyo koobiga. waxyaalaha koobiga hadaad rabto waa kana sida background loo jaro sawiradaaduna ku xasan kartaa insha Allah doo Ilaahay idmo. channel subscribe kan saarin hor dib u saar waana maasantahay.